barnaamijka garsoorka oo hadahan oo kale TV-ga qaranka Soomaaliyeed aad ka daawataan barnaamijka toddobaadkiisii labaad ayaynu daawadayaal idin soo gudbin doonaa waxaana halkan si wada jir ah uga soo jeediyay toddobaad waliba anigoo Sharmaake Abuukar Amiin iyo waliba walaashay Nadiifa Cali Shadoor ku soo dhawaada barnaamijka garsoorka fanka هيا نظيفة حجو شرمك حجة كتير حسافك يو حلشة فنانك يو حدقي سنتك يو حريك جيت كدعايو حفلتك وانك هلاي حقين أوراد سدا أوركو حرمان نظيفه أنا هاي حكتها حقيقة شرمارك هو حاشاي بالسودان برنامج حخسور ولا قد ورا حقيرادة وفنكو كوحي فالتما SMTV بوحلقن حرق جيتكو كسعوداية شرمارك حفله هور فريسو فنان ولي بحرفدي عضيو حرق لي سوغان ولي بحرف كيت حجمي مرتدى يا حتى إيو عد حريران يا حرفدي هو حدك نقون كرا برنامج قرصور كفنكا وبرنامج دوانك بحدونا التلفزيون كقرنكا سوماليا وحنا لغو سو خولي دونا الدقة هي حديك تفنكا برنامج قرصوركا فنكا قرصوركا فنكا قرصوركا barnaamijka garsoorka fanka waxaad xilligan oo kale ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya ujeedka barnaamijkana waxa uu yahay in aan ku kala shaandheeno oo aan soo xulno xidiga iyo xidigta fanka Soomaaliya waxaana tartansiinina sidaan hore idinku sheegnayba ilaa iyo soddon iyo laba fanaan ayaa barnaamijka inta uu socda qayb ka ahaan doonta haddii Allah awoodali uu ogolaado iyadoo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay aynu soo qaadanay afartii fanaan ee ugu horeysay oo toddobaadkan loo codeeyay aad iyo aad afartaas fanaan nadiif waxa ay kala ahaayeen dhankii gabdhahan ku diro waxay ahaayeen Nasteexa Indo Xamda Kuweel iyo waliba qadarkeeyo iyo waliba Caaqil Yare toddobaadkan intaynu u gudbin barnaamijka Sharmaarku haye maxaynu ku bilaabanaa nadiif waxaan ku bilaabaynaa horta kaalmihii suugaanta iyo afarta fanaan ee toddobaadkan aan tartansiinayno waxaana sheegi doonaa afartii la soo dhaafay toddobaadkii la soo dhaafay tartantay natiijooyinkooda iyo sida ay codadka u kala heleen labada jidka looga tagay labada barnaamijka qaybta labaad u soo gudubtay intaas iyo waliba sheekooyin aad u xiiso badan ayaa naloo soo diray waliba waa kuwa adinka inoo soo dirteen ayaan halkan idinkaga akhrin doonaa barnaamijka intaynu heestii ugu horeysay toddobaadkan aynu soo qaadanin marka hore aynu mahad celino kaamirada koobaad labaad iyo waliba isku dubridayaasha barnaamijka toddobaad waliba gacanta weyn inaga siiya aad iyo aad nadiif waxaan u mahad celinaynaa kaamiramanka koowaad iyo kaamiramanka labaad iyo barnaamijka dhanka farsamada wiilka inoo jooga waxay kala yihiin MJ Taajir iyo waliba Yaasir Maxamed Daahir Yaaska Films ayaa loo yaqaanay waliba Cabdalla Tahliil Aadan Cabuudi ayaa isaguna barnaamijka kaalinta weyn oo ugu weyn qayb weyn naga siiya aad iyo aad nadiifoy afarta fanaan ee tartamayso horta aan u sheegno si aan heeska ugu horeysa barnaamijka soo qaadano intaynu fanaaniinta toddobaadkan tartamaysa aynu sheegin maynu soo qaadano natiijadii toddobaadkii hore si ay dadka u ogaadaan natiijada toddobaadkii hore waayahay waxaan ku soo dhaweynayaa xoriyo soo dhawo aad baad u mahadsantihiin Nadiifa iyo Sharmaake daawadayaal barnaamijka garsoorka fanka xubintiisa natiijada toddobaadkii la soo dhaafay ayaanu idin aqrinaynaa toddobaadkii hore waxaanu tartansiinay afar fanaan oo kala ah Nasteexa Indo oo aynu ku aadinay Xamda Kuweel halka qadarkeeyo aynu ku aadinay Caaqil Yare toddobaadka waxaa muddo 5 maalin ah socday codeynta ay taageerayaashu u kala codeynayeen afarta fanaan ee aynu tartansiinay waxaana guud ahaan natiijada codeyntu ay noqotay 665 cod waxaanu ku hormaraynaa dhanka wiilasha sida ay codadka u heleen taageerayaashoodana ugu kala codeeyeen Caaqil Yare waxa uu helay 137 cod halka qadarkeeyo uu helay 185 cod Xamda Kuweel oo dhanka gabdhaha ugu horeysay iyadu 164 cod ayay heshay Nasteexa Indo boqorada codka taageerada markaan u fiirayo Nasteexa Indo 179 cod ayay heshay waxaana wareegga labaad u soo gudbay Nasteexa Indo iyo qadarkeeyo qaybtii natiijada toddobaadka aad soo codeyseen daawadayaal waa naga inta waxaan ku wareejinayaa qaybaha kale ee barnaamijka Nadiifa iyo Sharmaake aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad ay u mahadsantahay Xorriye Cabdiqaadir Sheekh ayaa natiijada toddobaadkii hore inoo sheegtay Sharmaake aad baan ula dhacay nadiifo natiijada toddobaadkii hore horta saameyn weyn buu barnaamijka waxa uu ku yeeshay baraha bulshada magaalada dhan waa la isla hadlayay qaar baa waxay ku leeyihiin nadiifa waxa soo baxaysa Nasteexa Indo qaar baa waxay ku leeyihiin waxa soo baxaysa Xamda Kuweel kuwa waxay ku leeyihiin qadarkeeyo kuwa waxay ku leeyihiin Caaqil marka aad fiiriso wali commentiyada Facebook dadka ay soo dhigayaan aad bay fanaaniinta hadde u xiisanayaan barnaamij qaas ma lagu soo diray aniga message qaas la ii soo diray iyadoo la weydiinayo natiijada iyo sida loo codeynaayo iyo qaabka barnaamijka aad xiiso loo ahaa toddobaadkii hore ayuu ahaa wax ugu badan ee dadkana weydiinayeen nadiifa waxa ay ahayd afarta fanaan
toddobaadkan soo xiga aan soo qabanayno si ay isugu diyaar garoobaan si ay u raadiyaan xidiga ama xidigta ay iyaga taageeraan balse barnaamijka ayaan mar walba ugu soo gudbinaynaa sida hadda barnaamijka natiijada xuriya ee ku dhawaaqaysa aan uga jeednayba barnaamijka waxaa hadda busta lagu reebay ujeeda sooma xamdi kuwin oo ay nasteexa ka tagtay iyo caaqil oo uu kayow ka tagay hadda waxaa laba fanaan baa soo baxda labana hadda busta lagu reebay toddobaadkan 4 cusub ayaa inoo tartami doonta haddii Allah uu dilo ogolaado labadaas fanaan ee soo baxday wareeg labaad ay u gudbayaan markii aan imaano 16 haddana laba kale un bay ku aadi doonaan waan ogaanina haddana nasiibkii inuu saacido oo ay soo baxaan iyo haddii barnaamijka ay ka hari doonaan laakiin labada kale ka harta waxaan leenahay sanadka dambe ayaan waxaan raadin doonaa xidiga iyo xidigta inay noqdaan hana lala socdo heesta barnaamijka ku furanayna waxaynu ku furo doonaa codka macaan ee Faisal Hawaase heestiisii Berrula ayaa toddobaadkan barnaamijka heesta ugu horeysa inuu noqon doonto haddii Allah uu dilo Berrula بدنا قدايمada kama bogto way beerlo sheerto bilicsanaa بدنا قدايمada kama bogto way beerlo sheerto bilicsanaa barbartiyo asxaabtaadan ka boqro boqol dumar baan kala bixi lahaa barbartiyo asxaabtaadan ka boqro boqol dumar baan kala bixi lahaa jacaylka beertay baa igu bahay beerloola beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan jacaylka beertay baa igu bahay beerloola beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan anna beerloolay ballanteena dhowr jacaylka beertay baa igu bahay beerloola beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan jacaylka beertay baa igu bahay beerloola beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan anna beerloolay ballanteena dhowr soo bixi doonaan aad iyo aad Faisal Hawaase aad baan ugu mahad celinayna heestiisan aad buu macaan waliba aan hadda waxaan ku leeyahay 100 gabdhood oo wariye baan kala soo dhaxbay ujeedka muxuu yahay na barnaamijka la qabato waayahay barnaamijka qaybihiisa ay hore aynu ku jirnaa waxaanu soo gaarnay xilligii sheekooyinka aan idin soo gudbi lahayn iyadoo sheekooyin aad cajiib ah oo qosol badan ay noo soo direen qaar kamid ah daawadayaasha TV-ga
ee la socda barnaamijka garsoorka ayaa sharmaake nadiif ay waxa aan ka raali gelinayna inaan sheekooyinkaas soo wada dirtaan oo dhan soo wada qaadan karin waqtiga oo ciriiri inoogu ah laakiin waxaan samayn doonaa qiimeen hadba qisadii ugu wanaagsaneed ee aan noo soo dirteen ayaan halkan idinkaga soo jeedin doonaa oo aan idin soo tabin doonaa wala inoo soo qaba sheekada ugu yaabka badan sheekooyinka aan helay toddobaadkan waxaa naloo soo diray qisooyin aad u badan oo cajiib ah waxa ugu xiisaha badneed uguna qosolka badneed waxa ahayd waxyaaba cajiib ah aad iyo aad waxaa ku jirtay marwo ninkeeda guriga marka uu imaado oo iridda uu soo garaacaba hore waxay ka leedahay ifur maxaa jira de waa kaa waan yaabanahay laftirkeena wuu soo galaa waxay leedahay ifurtii u dhibsaday muxuu sameeyey ma garanaysaa haddii wuxuu sameeyey waxaan ka horumarinaynaa heeskan noo soo xul markan waxaan soo qaadan doonaa qaaliladan oo iyadu kamid ah fanaaniinta toddobaadkan barnaamijka martida inoogu ah weliba heesteedii ay ku ammaanaysay wiilasha Soomaaliyeed haddii wiil Soomaaliyeed kula taagan nala daawada heeska
wiilasha Soomaaliyeed wadankii jecel yihiin wadnihii qarankeena weeyaan cadowna 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 ma waabi karo cadowna 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 ma waabi karo waan filayaa in daawadayaal aad si aad uga heshaan codkii macaan ee qaaliladan haye oo ku ammaanay filayaa maadaama aad tahay wiil Soomaaliyeed way ammaantay hal lagu ammaano qaaliladana haddii aan helayo geesiga wiil Soomaaliyeed geesiyaal badan a jiro kuwan daawanaya geesiyaal laftirkii geesiga ah oo barnaamijka duubay waa geesiyaal laakiin qaaliladan way haysataa geesi Soomaaliyeed oo waliba nolol macaan ay kala dhaxayso waa liibaan jijiga iyada iyo geesigeedu baan salaamina aad iyo aad waayahay barnaamijka qeybihiisa dhex ayaan marinaa haddee sheekada xiligeeda halkeedan kasii wadaya sheekada markii gabadha guriga loo soo gargaraaco kuwaan nala soconine aan dib ugu soo bilaabo haye gabar baa hadda kahor sheekada waxaa noo soo diray qof kamid ah dadka barnaamijka daawaday oo magaciisa qariyay gabar baa ninkeeda marka uu guriga yimaado albaabka uu soo gargaraacay waxay ka horgeyn jirtay ifur shaquu ka yimaadaa gurigu soo galaa ifur magaaladu ka yimaadaa gurigu soo galaa ifur ninkii ereygaas aad buu u dhibsaday nadiifay markuu aad u dhibsaday buu wuxuu sameeyey wuxuu yidhi ma furin baa rabtaa mise wax kale markaasay tiri furin baan rabaa waayuhu yidhi hadhow markaan shaqada kasoo laabto meesha communityga islaamka isugu yimaadaan ama dadka culimada oo dee dadka isku meeriya marqaatiga gala wuxuu yidhi waxaan kaaga keenaya warqadaada sheekada macnaha qurbaha ka dhacday wadanka aad iyo aad wuu baxay shaqadiisa markuu tagay uu kasoo laabtay shaqada oo wuxuu soo maray meesha communityga markaasaa wuxuu sameeyey computerkiisa shaqada ayaa wuxuu kusoo qoray nadiifay xabiibtii aad baan kuu jeclahay aniga ma raba inaan ku furo waxa aan rabaa in aan nolosha kula wadaago warqadii uu soo daabacday wuu isku soo laalaabay baqshad buu kusoo riday meesha communityga la soo maray markaasaa loo soo tiimbareeyay warqadiyo baqshadaysan wuxuu kor kasoo saaray calaamadii tiimbaraha communityga guriga markuu yimid albaabka uu soo gargaraabay maxay ka horgeysay ifur muxuu dhiibay marka warqadii oo hadda community kor uga sawiran tahay warqadii aragtay may ujeedkeeda ayay sidaa ma ahayd iyada waxay una ahayd ninkaan dhib oo maalin walba ifur dheh maahane gabar furin rabta maaha warqadii inta aragtay iska oysay allah aniga waa maxay furaysaa aniga ma rabin waxay iga ahayd ciyaar oon kula kaftamayay isaga wuxuu yidhi ama kafta ama ha kaftami warqadii gabdhaha Soomaaliyeed ay leeyihiin oo anigu aan ugu horeeyo ifur warqadii iyada run aysan ka ahayn aad iyo aad warqadii yaa intay qaadatay bay meel ku tuurtay isagii gees buu ka fariistay wuxuu yidhi warqadii ay dirtay maba fiirininba way iska ilmeynaysa wuxuu yidhi warqadii waa taa habeenkiina inta kasoo guuray buu fadhigii saxday iyadu waxay iska dhaadhicinaysaa afkiisa ama ka maqashay warqadii ama aqrisay maba furnidba warqadaas haba furinba warqada aslan ha furin markaasaa habeenkii markuu seexday subax shaqada aad habeenkii labaad buu wuxuu yidhi walaale ani adiga waxba nagama dhexeeyaani warqadaas aqriso iyadana waxay taagan tahay warqada aqrinaga ma lahan kullaba community waxaa ku tirahdaa gabadhii aan qabay warqadii ma aysan furin iga furantaa dheh si aan xal gurigeena ha ugu raadino aan wada noolaano markaasuu yidhi ma weydinayo warqada fur weydiida markaas wuxuu ku yidhi warqada keen hal dalaaqo laba dalaaq iyo saddex waxaan ku qoray laftirkeyga ma ugu caraysanayo waxay tiri ani ma fiirina un adaa akrinaa waxa ku qoran waayahay warqadii inta loo keenay buu furay markaasuu yidhi horta akri furin maaha way akrisay ma rabo macaan inaan kaa fogaado nolosheediyaa tahay waxaan aad gurigeena ku wadidna naga daa de maxay samaynaysaa nin naagtiisa nin aad u caqli badan ayuu ahaa kaasi waxaan rajeynayaa in wiilasha laftirkeeda waa ka caqli badan tahay wiilasha Soomaaliyeed in ay tusaale u noqoto ha loo fikiro guryaha dumaaya lagu degdegin ayaan leeyahay waayahay barnaamijka qeybihiisa dhex ayaan marinaa nadiifo maxaa noogu xiga waxaanu soo qaadanaynaa fanaanka xiga waa Cabdiwahaab Booska oo isagu ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu tayada wanaagsan hay'asha marka nadiifo waa sidaa sheegtay intaan heeskaasi soo qabanin ka hor waxaan rabnaa barnaamijka dad baa tookadii hore daawanin in aan ugu celino habka loo codeyn lahaa barnaamijka haddii aad Facebook isticmaasho gal Facebookaaga waxa aad ku qortaa barnaamijka garsoorka fanka kadib waxa ku soo baxaya shaashada wax saaran halkaasina ka tixraac ورجينا إن أد وفهم دونان أنت استعمال فيسبوك ولي بقى سي سهلا وهل دونان قاب كي يقعدين الحياة برنامج كجرسور كفن كتلفزيون كقرن كصومالية أي ولي داونا يا ناس حابته هسك حتى برنامج كان سوقنا وحويه فنان كعبدها بوس أو كم إذا أفرت فنان التضباط كان انترتنسين إنه وحو الدنيا هي فيصل هواسي هسك كان سوقنا إنه نوح هاي هسك كيسة عوائية أيان داو شو عن
وعلى مسار وبحي عليه عرفي وتقول عاشق باهر قلي عويو يا وعلى مسار وبحي عليه عرفي وتقول عاشق باهر قلي عصب صبحيو ورر عصبي عصب صبحيو ورر عصبي عروس كودي وي عوضينا دها عصب صبحيو ورر عصبي عصب صبحيو ورر عصبي عروس كودي وي عوضينا دها ولي ما ددو حيشو وروبيو راقيو ولي ما ددو حيشو وروبيو راقيو دوما وانيدين خياري عرو الخير غبتو عن نعاسي نقن عدل كينك هلا 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 عدل كينك هلا 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 عدل كينك هلا ولي ما ددو حيشو وروبيو راقيو ولي ما ددو حيشو وروبيو راقيو دوما وانيدين عياري عرو الخير غبتو عن نعاسي نقن عدل كينك هلا 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 عدل كينك هلا كهلا 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 عدل كينك هلا cabdiwahaab booska ayuu kaasi ahaa iyo heestiisii weliba cawo iyo ayaan barnaamijka ayay qayb iyaduna ka ahayd toddobaadkan haye xageena laga daawanaya nadiif SNTV barnaamijku waa kee waa barnaamijkii garsoorka fanka toddobaadkiisii labaad qaybaha dambe ayaan soo gaarnay barnaamijka qaybihiisa dambe ayaan maraynaa haddaba daawadayaal si aad barnaamijka garsoorka fanka nagala qayb qaadatid isbuuc walba waxaad inoo soo diri kartaan sheekooyin qisooyin cajiib ah sidii tii hadda aan sheegno kale oo aad weliba waxay inoo soo diri karaan daawadayaasha haddii ay jiraan sheekooyin qosol ah si aynu barnaamijka ugu soo qaadan xagee noogu soo dirayaan nadiif emailka shaashada ku qoran waxaynu soo gaarnaa qaybihii dambe ee barnaamijka garsoorka fanka iyadoo toddobaadkan barnaamijka ay marti inoogu ahaayeen afarta fanaan ee kala ah faysal hawaasi oo aan ku aadinay cabdiwahaab booska iyo weliba qaaliladan aan ku aadinay sacdiye siman hadda waa halkaas nin walba taageerayaashiisa ha uga codeeyaan page-ka aynu soo dhignay ee votingka ama codeynta ee ka socoto haddaba fanaan yaa wadada lagaaga tagin haddaba fanaan ku dhiirigeli taageerayaashada inay ku codeeyaan intaynu barnaamijka gunaanadkiisa aynu soo gaarin ama aynu soo qaadanin fanaanka ugu dambeeya programka bal sheekooyinka ay noo soo direen mid kamid ah aad iyo aad wata hadda isla wada akrinayna nadiif sheekooyinka noo soo direen daawadayaasha waxaa ku jirta sheeko aad u cajiib ah laba wiil baa isla socotay markaas waxa ay labadoodii ku murmeen anaa kaa xaasisan iyo anaa kaa xaasisan sheeko xiiso badan ayay ahayd taasi intay isa soo raaceen baa laamiga lasoo maray mid baa wuxuu arkay oday waayeel ah oo bakoor ku socda labadoodan waa dhalinyarada hadda socto jimka qaaqaa odayga inta u tago feerku bilaabay odaygaa dhacay markuu odayga dhacay baa kii kale inta u tago wuxuu yiri kii kale horta qosolo gees la fariistay wuxuu yiri ani ma iga xaasisantaa soo ma jeedid odayga sidaa yeelay markaasuu yiri inaa kaa xaasisanaan ku sheega ha odaygaa feeraysay waa awoogay mana kaa celin soo ana kaama xaasisanin sheeko cajiib badan ayay ahayd qaybihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay nadiifa heeskan kusoo xirana waxaynu kusoo xiri doonaa codka macaan ee sacdiye siman weliba heesteedii ugu xiisaha badneed heesaheeda ee ebermiya ayaynu toddobaadkan barnaamijka kusoo gunaanadi doonaa ebermiya nala daawada
ogidinay naftanii awada haraad la adqaysan tahay nama ogidinay naftanii awada haraad la adqaysan tahay ebermiya ubixi abeerteen ilaa shalaysen ebermiya axdigii egaareen araskoodii ebermiya ebermiya ifafaala guur iyo ayahan sugaynay ebermiya oh my god ebermiya ifafaala guur iyo ayahay sugaayeen ebermiya oh my god ebermiya inta aynu kaga gudubno codkii macaanaha sacdii siman iyo weliba heesteedii ebermiya axdigii aan beernay ilaa shanay ebermiya waxaad daawanayseen barnaamijka garsoorka fanka waxaadna kala socoteen tv-ga qaranka soomaaliyeed istuudiyiisa dalka Finland dhanka kaamirada waxaa gacan hagarlaaneed inaga siiyey midda koowaad MJ Taajir tan labaad yaasir maxamed daahir yaaska Philips dhanka isku dubareedka barnaamijka waxaa gacan hagarlaaneed mar waliba barnaamijka nagu saacida Cabdalla Tahliil Aadan sidoo kale Xuriya Cabduqaadir Sheekh ayaa iyaduna barnaamijka qayb weyn ka ahayd oo iyada barnaamijkan toddobaadkan la soo saartay tan iyo intaynu barnaamij noocan oo kale toddobaadka dambe haddii Allah wadale aynu hawada dib ugu kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo barnaamijka garsoorka fanka garsoorka fanka garsoorka fanka